السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا Soomaaliyeed meel walba aad dunida fiidii ka joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waa walaalkiina bashka balcad waa mar kale iyo isku soo noqosho wanaagsan asxaabta waad ii xiisteen anigana sidoo kale waan idin xiisay maanta asxaabta si aad iga barateen barnaamijku waa ka duwan yahay waxaa igu soo siyaaday qiso cajiib ah ay dadku asxaab badan ii soo sheegtay ee ugu dhahday qisadaasi kasoo hadal camal aniga ma aan jeclaysan inaan qisada kasoo hadlo balse qiso yar ayaa maanta idiin wadaa idiin sheegaya asxaabta marka soo dhawaada gacmo furan ka soo dhawaada marka fadlan waxaan ka codsanayaa haddii aad channelkii ku cusub tahay marka kugu horeysa ay tahay inaad subscribe ii saarto like-na aad ku darto fadlan midaasi waa codsi waad mahadsan tahay qisadan waxay la magac baxday khiyaanaha samayn يعني قف وليجا حمانها كل طالين وايو إن الدنيا ده نوحة waa buug qoraal weeye waxaad qorato waad akhrisanaysaa qisadan marka waxa weeye qofna xumaan ha kula talinin waayo aan u leeyahay waxa qisadani tahay qofna xumaan ha kula talinin wiilba isagoo ay wuxuu yiri niyo qisas saas iyo saas baa aniga indhahii ku arkay marka ma ka soo hadli kartaa haaba ku yiri nacam waxa ay hubaal yihiin dhabiin waa laga hadlayaa marka qisadu waxay leedahay waxay jireen haddaan idin soo bandhigiyo waxaa jireen laba wiil oo saaxiibo ah marka labada wiil mid ka mid ah waxaa la dhalatay gabar maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday asxaabtiida gabadhii wiilka la dhalatay in la kufsado gabadhii waa la kufsaday waa la jir dilay dhaabacyo baa loo geystay xanuun badan gabadhii aad baa loo rafaadiyey waa jirkeeda lagu xadgudbay gabarnimadeeda la dhaabacay wiilkii walaashiisa la kufsaday aad buu carooday wuu xumaaday maadan dareemi kartaa walaasha haddaa gacan loo qaado amba lagu xadgudbo waxaad dareemi karto waayahay muddo kadib adiga saacado kadib wiilkii saaxiibkiisa ayaa kula taliyey in walaashiisa u aaro waayo midda oo sheeg wuxuu yiri walaasha hadiiba la kufsaday dhabacaasi loo geystay adiguna waad inaa u aarsa damir ma lihid miya wuxuu kula talinayaa xumaantii hadda walaashiisa lagu sameeyey oo asigii ka gubanayo asigana inuu sameeyo oo kula talinaya wiilkii uu awoodi waayo wuxuu yiri xanuunka hadda aan dareemayo ma raba inuu wiil kala dareemo mana samey karo ugu dambeyntii waa laga dhaadhiciyey wuxuuna isku dayay inuu qisadii falkii inuu ku dhaqaaqo oo gabar raadiyo isla markii gaari buu soo kaxistay wuu soo baxay biidnillaahi kariim maxaa dhacay markaas isla markii asigoo gabadhii oo gabar inuu rabo inuu fal ku sameeyo ayuu wuxuu arkay asigoo gaari wato gabar lifdi rabto maxaa marka dhici rabo meesha maxaa ka dhici rabo gabadhan ayay noqon doontaa talow gabadhani lifdiga rabto ayay noqon doontaa wiilkaanse muxuu samayn doonaa gabadhii gaarigii ku qaaday markuu cabaar wada adiga xoogaa kilomitirya wuxuu yiri waxay tiri gabadhi halkan ii jooji marka dhankan arba markay bidix rabtay asiga midig buu gaariga u jiriyay marka waxay tiri walaalo dhankan baa rabaa ii jooji kadibna wuxuu yiri halkan wadadan way go'an tahay sidaan baa u soo wareegaynaa kor baan ka soo galiynaa halka rabtana ku geenaya walaal lima lahan miyaaradihii buu dalacay gaarigii barig ma qaban wuu la cararay gabadhii buu la cararay meel fog buu geystay juqo ah guri ku yaal mugdi ah gurigii buu geystay saaxiibkiis wuxuu yiri niyo gabar gacanta ku soo dhigay falkan inaa ku sameeyaa rabaa waa inay soo gaartaa waaya buu ku yiri waa ku imanayahay hooshada sii qabso la sii manaajo camal buu ku yiri gabadhii buu falkii la dhacay gabadhii buu jir dilay wuu rafaadiyey xumaantii u geystay yaa imaaday gabadhaas ayaa noqon doontaa marka wiilkii wiilkii saaxiibkiis ahaa ayaa imaaday meeshii wuxuu yiri adigana gal qodaada ka gal gabadhii waa wiilkii culays aad u weyn baa ka koray inuu gabadhii inaan waa walaashiisa isku dhiig inuu xumaantii kula kaco ayaa culays aad u weyn ayaa ka hor istaagay wuu sameey waayay markaas wuxuu yiri niyo marnaba suurtagal waa ii naqlaadahay suurtagal waa ii naqlaadahay waa maxaa halkan ka jiro wallaahi muddo kadib adiga gabadhii buu nal buu daaray wiilkii gabadhii buu nal ku qabtay dabadeedna waaba walaashiisii weeyey aad buu iskugu naxay wuu ooyey wuu calaacalay wuu cawaaday meeshii buu dagaal ka kacay asigii wiilkii ay isku dhaceen falkan asigaa soo baasay asigaa ku dhacay waa inaa aarsataa walaasha aad u aartaa yaa laga aaraya walaashiisii noqotay gabadhii ileen falkii asigaa soo baasay markay qisadani waxay ku tusaysaa amba ay ku leedahay weliga qofna xumaan ha kula talinin haddii aad xumaan qof kula talisana xumaantaas adigay ku tala waayahay lambar labo qisadani waxay ila tahay middan labaad inaad maqasheen aniga ahaan iguma cusbo hore waan u maqlay laakiin ayadan waa lii soo baasay
qisadana kale waxayna leedahay in waxaa jireen haweeney iyo sayigeeda ayaa jireen yacni ama sidaad u fahmi kartid nin iyo naagtiisa ayaa jireen waxay ahaayeen dad aad u dagaal badan ninka wuxuu ahaa mar walbaba xaaskiisa wuxuu ahaa mid garaaco dilo jir dilo maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday inuu aad ay u cadhooday ninkii oo garaaco kadibna ulbu meelahan ka mariyey qoodha surta sidaad u taqaana bartaan buu ul ka mariyey kadibna xaaskii istaagay ka dhacday dhulka bay ku dhacday kadibna waa muddo kadib sidii u rufanaysay u cabaadiisay u suuxsaneed way geeriyootay way dhimatay allah u naxariiso kadib waa wuxuu aad buu u naxay wuu soo cararay ninkii guriga uu ka soo baxay bannaankuu aaday nin saaxiibkiisa oo meel jooga u tegay wuxuu yidhi niyahow sheekadaasi baa aniga igu dhacday sidaas iyo sidaas baa igu dhacday xaaskaygii baa ul ku dhuftay wayna dhimatay niyahow falkaas inaa ku dhaqaaqo mana rabine maxaa sameeya muddo kadib ninkii siduu u fikirayay wuxuu yidhi niyahow waxaad samaysaa xaaskaygii baa dilay horta wax suurtagal ah maahan familkeedana kaama aqrisanayaan waxaad samaynaysaa buu ku yidhi wiil yar baad raadinaysaa wiil yaroo dhalinyaraho shabaaba raadi waxaana geysaa gurigaaga waxaad ku tiraahdaa kaalay guriga baa waxaa yar iiga qabanaysaa wiilkayga soo dhawaa waxyaaba adiga sidaa guriga ku geli lahayd falkeeda gal wiil gurigeeba ku yidhi kadibna ku dil meesha kadibna shacabkoo dhan iskugu yeer waxaad ku tiraahdaa kaalaya meeshan xaaskaygii iyo wiil yar baa ku dilay xumaan sameynayo xaaskaygiibuu xumaan la sameynayay xaaskaygiibuu ii daba maray ku dheh buu ku yidhi wiilkiibuu guriga geeyey talow wiilkii yuu noqon doonaa wiilkii markuu guriga geeyey wiilkii meeshiibuu ku dilay dadkiibuu iskugu yeeray waa la yimid meeshii dad aad weyn bulsha naqatay meeshii jaam bay naqatay dabadeedna waxaa lagu yidhi hala asturo dadkan intaana la asturin ka hor wuxuu u yeeray ninkii falkan soo baasay ee ku yidhi kula taliyey inuu wiil dilo oo xaaskiisana qoorta u saaro ninkii kula taliyey ayuu u yeeray kadibna ninkii asigoo ordaya ayuu yimid gurigiibuu soo galay tallooyuu arki doonaa iyo indhihiisa qaba doonaan bismillaah wuxuu arkay wiil wasagii dhalay wiilkii yaraa ee wiilashoo dhalay wiilkii ugu yaraay buu arkay oo meesha yaalo aad buu u naxay wuu isku dardarsamay wuu qasmay dhidid shaxuur aad u fara badan ayaa ka daaday wuu welwelay kadib wuxuu yidhi maxaad samaysanayo maxaa samey lahay waxaad adiga ifartay unbaa sameeyey war wiilkaad adigu disho waa wiilkeygii buu ku yidhi allahu akbar aad buu u naxay asigana sidoo kale marka qisadan waxayna leedahay qaybta qodobka 127 haddaa fiiriyo qisadan waxayna leedahay waa inaa weligaa ay allah qofna aan xumaan kula talinin qofna weligaa xumaan ha kula talinin qofna weligaa ha oran wax xun sameey waayo waxaad samaysato waa wax adeeg meel ku yaalo wax walibana waa wax adeeg meel ku yaalo waxaad samaysato waa wax adeeg meel ku yaalo qofna xumaan ha kula talinin waana maqasheen sidaan u maleynayo sheekadii hadda ka hor dadkii reer baadiyaha dhalkaas baadiyaha waxaa la yidhi sidaad maqasheen nin baa hadda ka hor waxaa la yidhi meel biyo miyaa mase xoolo joogaan wallaahi mar hore weeye ma xasuusto laakiin waxay ahayd nin baa hadda ka hor waxaa la yidhi nin dabada qoray jug ugu siiyey dabadaba qoray ugu maday kadib ninkii asigoo maalmaha ka mid asagoo mara xirin oo ul wata baa asigana ushiisii oo ogsanayay baa dabada ka gashay kadibna wuxuu yidhi waa maqli jiray buu yidhi sahan ku gud laakiin weli ma aanan maqlin buu yidhi dubar ku gude wallaahi marka sheekadan waxaa ula jeedaa weligaa qofna xumaan ha kula talin qofna weligaa ay allaha ha kula talin xumaan inuu sameyso qofna weligaa allaha ha kula talin xumaan marka la kugu celiyo mar walbaba dhanka samaanta laga fiirinin haddaa xumaan loo geysto ku dheh iska sabar haddaa qalad laga galo ku dheh iska sabar weligaa qofna xumaan ha kula talin mar walbaba samaanta la fiiri waayo haddaad samaan tahay adiguna samaan ayaad helaysaa haddaad xumaatana kulley xumaan waad helaysaa marka barnaamijkeeni intaas ayuu noogu ekahay asxaabteena waana isku xiisi doonaa waan isku soo laaban doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaas iyo